labadii maalmood u dambeeyay ayaa ciidanka booliska Soomaaliland waxay gudaha magaalada Hargeysa ka bilaabeen howlgalo ay dhalinyarada timaha kaga xirayaan taasoo abuurtay hadalhayn badan isla markaana ay bulshadu ka biyo diiday afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Korneyl Faysal Xiis ayaa shir jaraa'id oo galabta ku qabtay xafiiskooda waxa uu sheegay inay sixid ku sameyn doonaan khaladka ka soo baxay howlgaladooda sidoo kalena waxa uu tilmaamay in qorshaha howlgalkooda aanay ku jirin tima xirista dhalinyaradu howlgalkaas ay ciidanka booliska ku jireen waxa ka soo ifbaxay in xubno ka tirsan ciidanka boolisku ay niman dhalinyaro ah timaha ka xireen arrintaasi ma ahayn kama mid ahayn ujeedada howlgalkayga waanu saxaynaa haddii ilaahay ka dhigo waanu saxaynaa hase yeeshee micnaheedu maaha yaan xilka iyo waajibaadka loo egmaday sida waxa loo gudanin waa la gudanayaa tuugta waa la qaqabanayaa diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliland leedahay waa la ilaalinayaa sida uu dastuurkeena iyo sharcigeenu dhigayo mid laga harayo maaha waxaan halkan aad iyo aad uga soo dhaweynaynaa dhalinyarada Soomaaliland ee milgaale ee sharafta leh ee had iyo jeer ciidanka booliska la shaqeeya arrinkaas xitaanka ee howlgal ka soo dhex baxay waxaa dhammaan la faraya ciidanka boolisku waxa kale oo afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland uu ka warbixiyay qorshaha howlgaladooda ay wadaan howlgalka ballaaran ee ciidanka boolisku ay wadaan waxa weeye mid lagu ilaalinayo nabadgelyada guud ee dalka mid lagu soo qaqabanayo dhalinyarada fidnadaasha ah ee xaafadaha ka dilaacay mid lagu soo qaqabanayo tuugta moobilada suuqa ku dhacaysa waa mid lagu sugayo nabadgelyada guud ee dalka iyo bulshada Soomaaliland intaba mid istaagaya maaha waa mid soconaya inta ciidanka boolisku ka jiro galka booliska tama xirista dhalinyarada ayaa waxa si weyn u naqdiyay siyaasiyiin aqoon-yahano iyo sharciyaqaanada kuwaasoo ku tilmaamay mid lagu degdegay oo aan loo baahnayn xilligan isla markaana booliska looga baahnaa wax ka qabashada dhalinyarada habeenkii dadka baadha culayska iyo naqdiga ku yimi howlgalka booliska ee tama xirista dhalinyarada ayaa lagu tilmaamay inuu sababay in hadda ay boolisku gartaan in arrintaasi dib uga laabtaan Kays Axmed Digaale Saab TV Hargeysa dhalinyarada waxa ku ajeen inuu noqono dad pragmatic dad runta hortaagan anigu kolintiina iyo badan kale way codanaysaa ninka codanaya wuxuu tala gelayaa janno kuma hayaan inta ka saaraan karimka ku galmaayo janno iyo barwaaqo iyo xarraga iyo waxa tima waa xiiraya su'aalka rasuulka jira mid ka jiro adag baa dilxaya gacmaha shaqay waa in ragga ragga أنا حبلها ورد عيني هو شيء لكن رجع واحد يسوي إيمانه إنه واحد يسوي هذا الشيء توقير هذه الدنيا مقلنسة توقفه تين كان مقالة كان قرآن الله عرفت بالك ولا يفتحش كله وين هزر والله انا كنت ايه والشقه هيسيري ايه خليه حتى يتسحنا نوعوي ايه وانا لسخين وانا كسدايه ما تمو ما لغا خيريا ما لغا خيريا هويدو ودين الا لغا خيريا ودين والله لغا خيريا والله لغا خيريا والله بحرية أجر ما بحرية ما كل إن الوحرية والله مكان بحرية كذا ما أقبل والله يجيبوا ما بحرية والحرية إيش واليوم دولة دولة يسكت كم بقولكم ما لقينا حاجة يسكت الله كذا تدويني وهي وانا ارتياق الاخرى وهي
تمام معصب اللي وين تبع له كويسه والله ثم نمرات المحبوبيه على طول كاكويا وعلى ما الدنيا وعلى كاكويا انا مكويا ما يعني كويا ما حد منه ولا بلا وكل صوت سالوا الحرمه ما يسخ شقتك وين ما دارتون بل وفيقه halkaas lagu istaagay sid center هي أريه شدي نقول لنا عشان خلينا نجيب كلاسة ما هو بريشن هو عيد كرني والله ومع الله لا تقعد ما قصينا نبي نلقى شيء واحد يقول لا واحد اسكت هو عايز عمي وجا بارك ما ينسى يا رئيس عمو رئيس بس العقد رئيس شوي كان كاحل انه العقد رئيس جابه عليا أدري والله قاعد يكفى كم بلاك وفي تحلنا رجال أنا ونبنو أنا صاحب مش كده صاحب أنا بدي أقول لك حسبه ما أنت ساكت Thank you.